war degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu xilkii ka qaaday 3 wasiir isla markaana magacaabay 3 wasiir oo cusub. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa 3 wasiir xilkii ka qaaday isla markaana 3 wasiir oo cusub uu magacaabay xilalkaas banaanaaday. ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kala ah Mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, Marwo Qadre Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha, iyo Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wareegto uu soo saaray oo ku magacaabay 3 wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 97 farqadiisa 3 ee dastuurka meelgaarka ah, markuu arkay qodobka 97 farqadiisa 2 xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah, markuu arkay qodobka 100 xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka meelgaarka ah, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, wuxuu magacaabay qodob koowaad Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha 1 2018. sidoo kale Mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018. sidoo kale Danjire Axmed Ciise Cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha 1 2018. wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda. qodobka 3 magacaabidani waxay dhaqangalaysaa marka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu saxiixay, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. intaas ayay ku eg tahay warkii degdega ahaa ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waa mahadsantiin.